kulan waxaan u wanaagsan daawadayaal waa maalinimo Jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 28 bishii shanaad 2021 wararkeena maanta ee Bolis Media waxaynu ku eegi doonaa kadib heshiiskii Afisyoone beesha caalamka oo dalab cusub u dirtay madaxda Soomaalida muxuu yahay codsiga loo diray maamulka Biden ee la xiriira dadka Soomaalida أحمد مدو فرين ودري عيدا مدى دولة كدب هشيسكي مقدشو داود يالبسو دوادا قضب داس او فاهفاسن كدب هشيسكي أفسيوني بيش عالمك او دلب عصب ودرتي مدحدا الصومالي دا وكيلا بيش عالمك يكسوغن مغالدا مقدشو يا سيوين اسو دبي هشيسكي لغاقاري قلاف كدوروشوين كدالكا أصيا شيء وحي مدحدا الصومالي دا ودرين باق عصب qoraal ay si wada jir ah u soo saareen saaxiibada beesha caalamka ayaa waxa lagu bogaadinayaa kaalinta uu ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha dawladda federaalka ka qaateen in heshiis laga gaaro khilaafka doorashada oo muddo badan soo jiitamayay waxay ugu baaqeen dhammaan saamileyda siyaasadda inay si degdeg ah hore ugu sii socdaan si loo abaabulo doorashooyin loo wada dhan yahay sidoo kale waxay qoraal si wada jir ah u soo saareen wakiilada beesha caalamka inay diyaar u yihiin inay madaxda Soomaalida ku taageeraan hirgelinta heshiiska taariikhiga saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya waxay soo dhaweynayaan shirweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee guusha ka soo hooyay shirkii ku soo ilaaday magaalada Muqdisho waraaqada ay beesha caalamka soo saareen ayaa waxa ay u qorneed sida tan waxaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ku bogaadinaynaa sida uu u hogaamiyay geedi socodka iyo sidoo kale madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo siyaasiyiinta kale ee sida habsamida leh uga qayb qaatay wada hadallada waxaan mahad u soo jeedinaynaa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku baaqay in kowda bishii maaj in lagu laabto hanaanka doorashada ee 17 September ee heshiiska ku saleysnaa waxaan hadda ugu baaqaynaa dhammaan saamileyda inay si degdeg ah hore ugu sii socdaan si loo abaabulo doorashooyin loo wada dhan yahay oo daahfuran waxaan madaxda Soomaalida ugu baaqayn inay wada hadallo caadi ah oo dhaxmaray saxiixayaasha heshiiskii 17 September ku xaliyaan wixii khilaaf ah ee mustaqbalka yimid saaxiibada beesha caalamka waxay diyaar u yihiin inay madaxda Soomaalida ku taageeraan helgelinta heshiiska taariikhiga qoraalka ayaa waxa si wada jir ah u soo saaray howlgallada midowga Afrika ee Soomaaliya Amazon Belgium Canada Denmark Djibouti Masar Ethiopia midowga Yurub EU Finland Faransiiska Jarmanka urur goboleedka IGAD Ireland Talyaaniga Japan ururka jaamacadaha Carabta ee LAS Holland Norway ururka iskaashiga dalalka Islaamka OIC Poland Qatar Ruushka Sudan Sweden Switzerland Turkiga Uganda toyada midowday ee Britain dawladda Mareykanka iyo qaramada midowday afar xubnood oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka ayaa maamulka madaxweyne Joe Biden u diray codsi ku saabsan in dib loo cusboonaysiiyo sharciga badbaadinta ee kumeel gaarka ah ee loo yaqaan TPS ee dadka Soomaalida aan sharciga ku lahayn Mareykanka madaxweyne Biden ayaa sharcigaani dhawaan dib ugu cusboonaysiiyay dadka ka soo jeeda dalka Myanmar iyo dalal kale laga bilaabo 25 May hase yeeshee waxaan weli kala cadeyn xaaladda sharciga ee dadka Soomaalida ah ee uu ka dhacayo 17 September afar xubnood ee Congress-ka oo ay ku jirto Ilhaan Cumar oo laga soo doortay Minnesota ayaa saxiixay warqad ay ugu baaqayaan maamulka Biden inuu muddada sharciga u dheereeyo Soomaalida sharciga TPS ayaa ka hortagaya in Mareykanka laga musaafiriyo dadka ka soo jeeda dalalka qaar ee loo arka kuwa halis ah in lagu laabto dadka haysta sharcigan ayaa sidoo kale la siiyaa sharci kale oo u ogolaanaya inay dalka Mareykanka ka shaqeystaan tani waa xaalad nolol iyo geeri u ah dad badan oo degan degmadeyda iyo dhammaan Mareykanka ayay Ilhaan ku tiri qoraal ay u dirtay wargeyska Sahan Journal xaaladda Soomaaliya aad ayay u fog tahay amni ahaan isla markaana dad badan oo haysta sharciga TPS waxay ku nool yihiin cabsi iyo walaac iyagoo aan ogeyn inay dalka sii joogi doonaan iyo in kale saddexda xubnood ee kale ee Ilhaan la qaba walaac ayaa ah Barmila Jayapal iyo Adam Smith oo laga soo doortay gobolka Washington iyo Veva oo laga soo doortay baabiinta TPS waxay cawaaqib burbur leh ku yeelan doontaa caruur Mareykan ah oo ay dhaleen Soomaalida haysata sharciga
sababtoo ah waalidiinta waxay wajihi doonaan kala doorasho aan macquul ahayn oo ah inay carruurtooda ka tagaan ama u kaxeeyaan dal halis ah, ayay ku tiri Ilhaan Cumar waraaqada ay dirtay. Waraaqada ay qoreen xubnaha Koongareeska ayay u direen xogayaha amniga guud Alexandra Michaels iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo khudbad ka jeediyay gabagabada shirka madasha wadatashiga qaran ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay inay dalka ka dhacdo doorasho loo dhan yahay isla markaana dhammaan dhinacyada ay ka wada shaqeeyaan. Axmed Madoobe ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in la fahmo marxaladihii kala duwanaa ee dalka uu soo maray iyo halka aan maanta joogno, taasi oo tilmaam u ah rajada mustaqbalka dalkeena. Waxa uu sidoo kale ugu mahadceliyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka dadaalka uu ku bixiyay sidii loo dadejin lahaa xaaladda dalka, isagoo ammaanay dulqaadka iyo dad jaceylka ay muujiyeen dadka ku dhaqan caasimadda maalmihii adkaa ee lasoo dhaafay. Dhinaca kale, Axmed Madoobe ayaa fariin u diray ciidamada iyo hay-adaha ammaanka isagoo ka codsaday inay siyaasadda ku milmin. Waxa uu sheegay in lagu kala aragti duwanaan karo siyaasadda, balse hay-adaha ammaanka iyo ciidamada looga baahan yahay taxadar dheeraad ah. Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay gacan ka haystaan sidii waqtiga ugu dhow lagu qaban lahaa doorashada, isla markaana taageeradooda ay lagama maarmaan tahay si looga dhabeeyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed ee mustaqbalka. Taasi oo go'aamo iyo wadiiqooyin loo maro la isku raacay inta uu socday shirka madasha wadatashiga qaran. Ugu dambeyn, wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay door muuqda ka qaataan howlaha socda, isla markaana ay ka shaqeeyaan sidii doorashada ay ugu dhici lahayd waqtiga ugu habboon si dalka looga saaro xaaladda adag ee uu ku jiro.